Ibas, Luniga aniga na ibas. Ibas, kubada aniga na ibas. Arsenal iyadoo u dhow inay guulaysato isla markaana qaybtii hore 2 gool iyo waxba ku marsiisay kooxda Watford ayaa dib u soo laabasho wacan oo wanaagsan laga sameeyay taariikhdana waa markii ugu horeysay ee Arsenal sidaasi ay ku dhacdo tan iyo bishii Abriil 2016 markaasi oo dib u soo laabasho wacan oo wanaagsan ay ku samaysay kooxda West Ham wixii ku dhacay Arsenal waxay noqdeen waxyaab iyo amaka ku noqday jamaahiirta Gunners oo maxaa yeelay dhinac kasteetaba waxay isa siiyeen in ay guulaysanayaan hase yeeshee macallimkooda Unai Emery ayaa ciyaarta ka saaray Dani Ceballos dabadeedna waxaa dhacday in sidii daadkii oo kale loogu dumo waxaana uu ahaa dhinac kasteetaba marka loo fiiriyo laacibka dhawaangalka ku ah kooxda Arsenal iyo maryaha guduudan mid kala qaadumeynayay ciyaarta oo maxaa yeelay wuxuu ku fadhiyay mashiinada qadka dhexe jamaahiirta Arsenal dhinac kasteetaba waxay ku caroodeen go'aankii uu qaatay macallim Unai Emery isagoo raaligelin ka bixinayana waxa uu yiri wuxuu u baahnaa ciyaariyaanka in nasiino la siiyo sidaasi darteed waxaan u baahnayn in aan sameeyno ilaa iyo 3 badal laakiin Watford waxay ahayd koox aad u xoogan oo waxay samaysay rogaal celin weerar kaasi oo jawi jahwareer ku abuuray dhammaan difaacyadii kooxda Arsenal siba marka loo fiiriyo difaacoodii David Luiz sidoo kale Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ahaa geesiga ciyaarta isla markaana u dhaliyay 2 kamida goolashii ay la timid kooxda Arsenal inkastoo laga barbareeyay Pierre-Emerick Aubameyang ayaana si toos ah gool ugu badalay 9kiisii darbo ee ugu dambeysay 7 kamida taasi oo la micno ah in ilaa iyo haatan uu yahay geesi gool magafa sidoo kale Aubameyang ayaa si toos ah ugu lug yeeshay 4 gool oo Premier League ah intii uu ka hor imaanayay kooxda Watford isaga oo dhaliyay 3 kamida halka caawiya uu ka noqday goolka kale oo si kasteetaba Watford waa koox uu aad u jecel yahay orodheeraha reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang oo baryahanna indhaha ay la raacayso kooxda Real Madrid ee ka dhisan garoonka Santiago Bernabeu oo wararka waxay intaasi ku sii darayaan in xitaa waqti waliba uu ka waraysto xaalka guud ee kooxda Real Madrid Dani Ceballos oo kooxda dhawaangal ku ah